runtii bila ka hor xaaladdu sidan waa ka duwaneeday marka ilaaha kuma hadla subxaanahu wa tacaala maanta halka aan joogno waa arkaysiin guulahaasna waxay ku yimaadeen dhidid iyo dhiig rag iyo haweenba ay bixiyeen si ummadda Soomaaliyeed looga dulqaado culayska iyo dhibaatada dul saaran waxaa la socotiin dawladda ku meel gaarka muhiimadda ugu weyn oo ay raadinayso inay Soomaaliya nabad noqoto la xoojiyo dawladnimadeeda iyo sharafkeeda waxa ay ka suuragali weysana waa al-shabaab iyo al-qaacida mar walba anagu waxaan la taagnayn gacan furan iyo walaalnimo iyo soo dhawaada oo nabad ku soo dhawaada laakiin ma suuragelin taas waxay keentay in lagu fikiro ama dawladdu ay ka shaqeyso in amniga la soo celiyo oo wax laga qabto amniga magaalada Muqdisho iyo amniga gobolada kale sida arkaysi gudahan runtii aad iyo u weyn ayaa la gaaray ilaaha ku mahadsan subxaanahu wa tacaala kuma ciidamada qalabka sida waa ugu hambalinaa iyo ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan leeyahay hambalo guulahaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku wanta oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay ku naalooto ay ku barwaaqo ku gaartaan